munaasabadan ahayd munaasabad lagu soo dhaweynayo madaxweynaha maamulka gobolada dhexe oo dhawaan laga yagleelay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa waxay ka dhacday degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan. Munaasabadani ayaa waxaa soo qaban qaabiyay qaybaha kala duwan ee bulshada reer Matabaan. sidoo kale munaasabadani intay socotay waxaa dowlad military ku soo bandhigay ciidanka maamulka gobolada dhexe taasoo soo jiidatay qaybaha kala duwan ee bulshada soo qaban qaabiyay munaasabadani. intaas kadib waxa la gudagalay khudbadaha mas'uuliyiinta lagu soo dhaweynayay waxaana ugu horeyntii gacan ka qaatay gudoomiyaha degmada Matabaan ee maamulka gobolada dhexe Cabdiqaadir Axmed Barre isagoona u hambaliyay madaxweynaha maamulka gobolada dhexe Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan. aan ku soo dhaweynaa madaxweynaha gobolka gobolada dhexe Dr. Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo lagu doortay si cadaalad ah kuna soo baxay si cadaalad ah sheekh anagii daliilka ahay markii hore wax la soo baray canjiradaashiisa iyo cilmigiisa ka buuxaan moobeelada hadeertaana ilaahayga qaaliq ah oo loo suurtageliyey inuu hogaamiyo bahweynta gobolada dhexe una noqdo madaxweynaha gobolada dhexe Sheekh Maxamed dowladgoboleedka gobolada dhexe Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan. sidoo kalena waxaa iyaguna ka hadlay munaasabada qaybaha kala duwan ee bulshada iyaguna si diiran u soo dhaweeyay maamulka gobolada dhexe ee dhawaan laga yagleelay degmada Dhuusamareeb. Sheekh Maxamed Shaakir madaxweynaha doorashada waadakum hadeena aad u qabna waxaan u maleynayaa meel oo kale oo looga tilaabsanaysan jirin qayb iyo khayr ka jeedina waxaan ku soo dhaweynaynaa sharaf iyo ciise Allah siiyo waxaan ku soo dhaweynaynaa ducaan ku soo dhaweynaynaa akhriska ku soo dhaweynaynaa kaalin aan sagtagna ku soo dhaweynaynaa seefaha nagaan dalka kala baxaynaa waxaan baryaynaa inuu cadaalad nagu sugo waxaan baryaynaa calan wanaagsan iyo cadaalad wanaagsan iyo nin diinta lagu hogaamiyo ilaahay inuu noo keeno heerkiisaas ay waan gaarbarihii waana ka aqbalay saas ku soo dhawaadooyay madaxweynaha naga cusub ee awalna dalka iyo dalkiisa iyo dadkiisaba maantay diintiisaba markiisa wada madax nooga ahay haddana madaxweyne noo noqday dalkiisa diintiisa ka facalaha ka yeelo waan salaamayna waan soo dhaweeynaa degmada Matabaan waxay ka mid tahay gobolka Hiiraan dadka waxaa u sheegaya inay maamulka la soo xiriiraan oo ku xirmaan oo laga sakaashado. ugu dambeyntii waxaa soo xiray munaasabada madaxweynaha maamulka gobolada dhexe Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan isagoona hambalyo u soo jeediyay bulshada reer Matabaan. waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa shacabka degmooyinka gobolka Hiiraan ee maanta noo soo dhaweeyay sidan shucuurta leh ee ay ku muujiyeen rabitaankooda aad baan ugu mahadcelinayaa. waxaan u mahadcelinayaa maamulka degmada Matabaan iyo maamulada kale sida maamulka Qodqod iyo maamulka degmada Girijir degmooyinka kale oo madaxdoodii ay joogaan ayakana waa ku mahadinahayaa xuduurka sharafta leh oo ay ka soo qayb galeen. waxaan ku mahadinahayaa ciidamka qalabka sida ee muujinahaya iyakuna rabitaankooda u dabaaldegahaya oo u damaashaadahaya xuskii walaalahoodii khawaarijta dagaalkooda ku shahiidoobay iyo soo dhaweynta ay soo dhaweynayaan maamulka laga yagleelay gobolada dhexe. waxaan aad iyo aad maanta aan u taagannahay muujin aan u muujinayno caalamka intiisa kale shucuurteenna aan u muujinayno rabitaankeenna aan u muujinayno. waxaan ugu baaqaynaa beesha caalamka inay fiiriyaan rabitaanka shacabka gobolada dhexe oo markaas samaysteen dowlad goboleedka gobolada dhexe. waxaan aad iyo aad ugu baaqahayaa beesha caalamka qaybaheeda kala gedisan inay shafka u garaacaan soo dhaweynta rabitaanka shacabka Soomaaliyeed ee gobolada dhexe. kowdii bishan July ayay ahayd markii magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud ahna caasimada maamulka gobolada dhexe laga dhawaaqay
maamulka kooban galgaduud iyo mudug iyo sidoo kale qayb ka mid ah gobolka hiiraan taas oo loo doortay sheekh maxamed shaakir cali xasan cismaan cabdulle TV-ga caalamiga Somali News Gurceel